بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي wanaagsan daawadayaal kani waa xiisaha wararka ku soo dhawaada barnaamijyada alaaba xilligan oo kale si toos ah la socotaan saacadee barnaamijkan oo uga duwan yahay waxaynu ku eegi doonaa arrimo aan filayo qaarkii markii idin soo gaaraan inay idinku noqoto wax cusub hase ahaatee horay meelo kala duwan oo ka mid ah warbaahinta looga sheegay arrinkaas oo la xiriira calanka Soomaaliya astaantiisa iyo sidoo kale heesta calanka waxa barnaamijka marti igu ah gudoomiyaha kooxda tala ku nool Sufyaan Sheekh Axmed oo kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed in muddo aan dalka dibadiisa ku maqnaa isla markaana soo diyaarinayay jaamacado iyo waxbarasho haatan waxa uu ku sugan yahay magaalada Nairobi nasiib ayaan u yeelanay maanta inaan la kulanno soo dhawow Sufyaan mudane wariye aad baad u mahadsantahay sidoo kale waxaan u mahad celinayaa xiisaha wararka aad baad u mahadsantihiin waayahay bal intaan bal u gudbin su'aalaha kale si kooban qadar daqiiqad abal Sufyaan waa kuma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مقعيقو وسفيان شيخ أحمد وحان هاقويهان سومالياد وحان عكسو برتي ودنك سوماليا ودنك كندا ودنك أمريكا ودنك إسبين جامعة كلا دوان تخصص كي ينوحو يهي سياسة جود عالم كأما سياسة عالم كأي جود حال انت خلافات كجود إيو ديمها كلا دوان عالم كجرس دود دون أقوى واي مركب ما أربعة هاي أد تشاء وأد قدومي أوتاي مسقف كريس كصدايته waxaan ahay gudoomiyaha kooxda tala ku nool ma nihin koox siyaasadeed ma nihin urur siyaasadeed waxaan ahaa urur aqoon-yahano Soomaaliyeed oo u istaagay ama u kacay in ay saxaan ama dib u saxaan taariikhaha iyo dhaqamada Soomaaliyeed ee qaldamay ama si gumeystihii uu qalday way goormadii ku dhalatay arrinkaasi oo bal inaad bilowdaan arrinta waxaan soo wadnay ilaa 2001 way maxaa idin soo baxay marka waxyaabaha hadda aan badana barnaamijka programka ugu horeeya qaybo kala duwan qaybta ugu horeysa ee aan hadda rabno ama aan wajahayno waxay tahay sidii loo bedeli lahaa astaanta qaranka calanka iyo calanka Soomaaliyeed waayo calanka Soomaaliyeed waa astaan shaydaan waa astaan diimeed heesta calanka Soomaaliyeedna waa hees loogu heesayo ama cibaado loo muujinayo kalinimo wax weydiisi calanka Soomaaliya special xidigta oo u taagan shaydaanka la yiraahdo Iblis calanka Soomaaliyeed iyo astaantiisa iyo xidigtan wuxuu ku dhow yahay hal qarni dad aqoon-yahano ayaa soo alifay culimo ayaa joogtay intaas maadiga ahaan lahayd iyo diiniga ahaan lahayd intuba wax dhibaato ah kama jirin waxa si gaar ah idinku marka aad hadda u aragteen oo xilligan aad u soo shaabacdeen bal noo faahfaahin wariye runtii waxaa mudnaan leh marka wax cusub ay yimaadaan in la isweydiiyo waxaan maxay yihiin laakiin inaan lagu mashquulin maxaad idinku u aragteen annagu waxaan dad mutacalimiina waxaan soo baranay wax dabcan Soomaalidu aysan hore u baran markaan ku leeyahay ka sheekeynaya aqoontayda waxay muujinaysaa macnaha deeply sida aan u aqaano waxaan waxay yihiin dhaqamada westernka christianka diimaha kala duwan waxaas oo dhan waxaan fahamsanahay marka anigu waxaan fahamsanahay waxaan waxay yihiin macnaheedu u taagan yihiin waxaan ku cadeynaya maantay oo tusaale kugu filan in aan sharaxno kaliya heesta calanka ee Soomaaliya waxay ku tusaysaa heesta calanku markaa sharaxadeed inay tahay hees lagu sheegayo kalinimo loo qirayo shaydaan ama calanka ama xidigta in la sheegayo in asaga la weydiisanayo kaalmo in la sheegayo in asaga loo ooyo ama loo kaco ama la caabudo haddii taasi ay xaqiiq tahay waxaan ku hadlaynaa luqadii Soomaaliga yihiin malay maayo su'aasha meesha ku jirta inay tahay siyaad ku ogaateen balse su'aashu inay tahay sideen ku bedelnaa sideen isu badbaadinaa ilaa waxaan dad islaama ma nihin dad shaydaan caabuda waxaan waa noo qariyay waxaan noo qariyay gumeysi not sare heesta calanka kale not sare bal sidee ay u tahay shaytaanka aad baad u mahadsantahay heesta calanka dadka Soomaalida waxaan sameynaa horta survey wax la dhaho ama baaritaan intaana runtii aanan arintan soo bandhigay markaan baaritaankii sameynay dadka Soomaalida heesta qaranka ee Soomaaliya ee dastuurka ku qoran waa heesta dastuurka noogu qoran oo qaado Cabdullaahi Qarshi ee uu alifay ninka la yiraahdo Xuseen Faarax ay alifeen ninkaas alif Cabdullaahi Qarshi qaado waxay leedahay heestu qaybteeda koowaad qolaba calankeedu waa cayn inaga keen waa cirko kale aan caan lahayn waa qaybta koowaad saddex sadar ka koobantahay qaybta labaad waxay leedahay xidig yahay cadi waadna ciidamisay carrada kaliga adiga curada carrada kaliga adiga curada in la yiraahdo xidig yahay cadi waadna ciidamisay oo micnaheedu yahay waadna dirtay adaan ku adeegnaa adaan ku shaqaynaa taxta amragaanahay we are your service in la yiraahdo waa shirki
laakiin adiga u dhigay hadda laakiin marka waa cid mise ay noqoto in macnaha dalkii madax banaani uu helay oo calan la helay oo astaan lagu garta la helay meesha ahayn haddii su'aashaas aan dib kugu soo celiyo wariye inkastoo wariye su'aal la weydiin oo isagu su'aasha u weydiiyo macnaha shacabka Soomaaliyeed weydiinayna ma banaan tahay in la yiraahdo xidigtii waa nacaawis laakiin ila cabuday ma aha ما هديب اللي يري معناها معناها إلا عبودة معها waxa cadeynaysa in la caabudayo mid ku xigta raac waxa cadeynaysa in la caabudayo hadii la yiri xidig yahay caadi waa naciidamis naciidamis micnaheena adigaana diray shaqada noo dirtay waxa hadda lagu xijiyay carrada kaliga koonka carradan maaha lama dhihin lees Soomaaliya waa qoran tahay carrada kaliga adiga u curada meaning wax ka horeeyahay ma jiraan wax ka sareeyahay ma jiraan laakiin way in ka soo aragtida aad xor u tahay laakiin isleedahay hadalka waa sida markii oo kala wixii loo jiido oo loo dhigo macnaha saarfta u dhigaysa dadka oo aad leedahay waxa loo jeedaa in la xabudayo oo balse uu la jeedo qofkii uu suubiyay in oo ay asaanta u tahay aan ku darno mid labaad aan u gudubno marka تصدحات تصدي معناها قفكي دوت كان مثلا او يراهدا sidaas ma aha waxaan u gudbaynaa mid saddexaad waxay leedahay cishada dhalatay calooshena sidii culaygii carrad marisay cishada dhalatay calooshena sidii culaygii carrad marisay meaning macnaheedu taas wuxuu yahay markii aad dhalatay calanyo ama xidig yahay markii aad oo xornimada aan gaarnay oo aad dhalatay ba adigu aan ku aragnay waxaad calooshena ka tirtirtay wax alla wixii nagu jiray oo dhibaha adiga noo keenay caafimaad adiga noo keenay wanaag daraadaaban saan ku nahay tuducda ugu dambaysa ee ku sii xirantaas waxay tahay caawoy dhaha micnay leedahay afka Soomaaliga caawo waxa lagu yiraahdaa waa saddex micnay leedahay caawo waa caawo oo caawada loo yaqaano ta ku xigtahay waxa weeyaan magac loo bixiyo badan dumarka oo micnaheedu ay tahay qof nasiib badan caawoy dhaha micnaheedu waxa weeyaan nasiib dhaha maya nasiib dhaha ma caawoy dhaha macnaha waxa weeyaan in la muujiyo khushuuc ama tawaadu cibaada ah oo loo muujinayo calankii oo la leeyahay war ha loo qiro macnaha weynaanta calanku uu leeyahay iyo nasiibka aan ku helnay isaga waxa ku raacsan midda ugu sii dambaysa waxay leedahay ku xigto ugu dambaysa waxay leedahay shantii cududood cadkii ka maqnaa adaa noo celiyo waad nacaawis shanta Soomaaliya cadkii ka maqnaa calan yahow adiga noo soo celiyo waad nacaawis haddii marka calankii loo qiray inuu nacaawiyey loo qiray inuu asagu naciidamiyo na diray loo qiray inuu wax dhibaato ay wixii dhamma asagu naga qaaday xidigtii la yiri xidig yahay caadi waa naciidabisay oo waa na dirtay laguna dare la yiri caawoy dhaha ha loo qiro macnaha loo khushuuco oo tawaadu ha loo muujiyo hadii la yiri qof kasta oo diinta islaamka yaqaana ama aqli leh meel kale oo loo jeedi karo ma jirto dadka qaar macnaha surveyga intaan ku jirnay waxay yiraahdeen waxa laga wadaa ammaan baa laga wadaa ammaan markaan fiirino calaamada kale oo caalamka anagu waxaan sameeynaa baaritaan caalamka Soomaaliya kale kuma sameeyno waxaan sameeynaa research ugu yaraan 18 calan oo 18 wadan oo kala duwan hal wadan oo caalamkooda sidaan anagu u muujiya ma jiro in fact researchka markaan ku jirnay dad badan oo ajnabihi waxay noo sheegeen markaan baarayna caalamkooda oo Kenya la barbadhigaynay in aan nahay qowmiyad runtii aan waxa ay sheeganayaan iyo ficilkoodu isan israacsanayn waayahay adaa ku watay marka dib aad u fiirsaysaa oo kale gaar ahaan kuwa jaceelka oo kale qofka inuu leeyahay bilaayada aan ku helin waa ku dhimanaya adiga waan ku yeelaya kaasoo kale marka maxaad leedahay tan aad ku fasirtay inay cibaado tahay ma israacaan hadii aan iraahdo mesela anigu waxaas hadaan helin waa ku dhimanaya macna dhib ay soo gaaraysa hadaan iraahdo oo waxaan shakhsi ay yihiin labo waxay kala tahay laba shay shayna waa baahi adiga aad qabto waxaas tan helin dhib ay soo gaaraya leedahay shayna waa shay aad u qirtay cibaado u qirtay because xidigta iyo calanka waxa loo qiray cibaado weey xidigtii macnaha dad Soomaaliya oo dhan caawisaali waxaan rabaa adoo iga raaliya inaan u gudbo wax la dhaho comparison inaan sameeyo calankan Soomaaliya sida anigu hore u sheegnaba Soomaaliya ma sameeyo xidigtana waxa dadka Soomaalida waxay aaminsan yihiin shanta Soomaali u taagan tahay uma taagna waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed la wadaago wax xidugta u taagan tahay really macnaha rasmiga xidugta u taagan tahay iyo calanku meeshu ka yimid calanka Soomaaliya ee maanta haysano ee buluuga waxa la keenay wadanka Soomaaliya 1889 waxa keenay Talyaaniga 30 sano intuu san dhalan ka hor ninka la yiraahdo Cawaale waa sameeyay calankaasi laakiin Cawaale waa sida lagu hayo wareysi uu ku bixiyay oo hadaba ku jirta 1883 ha isagu waxa uu leeyahay inuu wuxuu qiraya isaga uu suubiyay oo waliba fikir asiga u gaar oo ahaa oo uradii xilligaas jiray oo Israa'iil ay kamid tahay koox walba ay wada calan gaar ah balse uu ka alifay isaga uu soo alifay oo shanta xidigna uu ku matalay shantii Soomaaliyeed cadaanka laga soo qaatay nabadda
buluugana laga soo qaatay badan ugu dheer oo aan leenahay miyaa absolutely waa waraysigaas waa daawaday in fact waxaan daawaday more than in qof Soomaali uu daawado laakiin xaqiiqdu waxay tahay Cawaale creditkii asaga bil siyo la yiraahdaa sameeyay ma dhahayo marka anu ma sameyn waa this is expected waa macna wax la rajay oo ku noqon kara calan gumeysi wuxuu noqon kara calan gumeysi taariikhda anigu dad ma nihiin macnaha wixii rabo lagu shubo waxaana dad aqli leh متعلمين waxa loo baahay laakiin laftiina waxaad ku shubaysan dadka waxaan adiga arabtaan maya ma shubayno calankii lagu bedel aw waxaan leenahay talyaaniga oo soo biyay kii markii talyaaniga koonfurta iyo xoroobis oo la bixinay muxuu ahaa marka oo kan la keenay su'aasha rasmiga oo dadka shacabka Soomaaliyeed qof kasta inuu isweydiiyo u baahanta waxay tahay hadii anagu aan been sheegayno taariikhdii taal 1889 kii calanka buluuga ee xiddigta dhexda ku leh asagoo qaybta hoose guduud ay ka tahay hadii uusan surnayn fisha gobyerno 1829 kii haduusan calanka buluuga ee xiddigta ku lahayn uusan ka taagnayn Tripolitania hadii uusan ka taagnayn Cernisi oo laba wadan oo taleen uu gumaysanaya oo exactly mid ka aan haysanaa hadii uusan ka taagnayn Cawaale Sami hadii laakiin 1889 kii Soomaaliya uu yaalay 1823 iyo 25 Liibiya uu yaalay isagoo exactly Kenya hadduu yaalay Cawaale ma samay karo waxa u diidaysa taariikhda u diidaysa waxa inta si dheer 1800 macnaha 1820 kii calankan waxa laga isticmaalay qowmiyada kale waxa maanta isticmaalo nala isticmaala oo isticmaala 1920 kiina samaystay ciidamada cirka ee Mareykanka waxa 1926 samaystay ciidamada badda ee wadanka Chile waxa samaystay oo hadda ilaa maanta haysta dadka caabuda shaydaanka intaas oo dhan waa taariikh jirta wax la inkiri kara maaha therefore lama dhihi karo Cawaale Sami waayahay intaas hadii jirto oo intaas soo dalay isticmaalaysay sideen looga ogolaaday in qaramada midowga laga taago oo la geeyo oo Soomaaliya lagu aqoonsado waaw arintaas waxaan u maleynayaa qof kasta oo Soomaali inuu ka jawaabi karo because powerka ama awoodda markaas jirta waxay ahayd Talyaaniga ma jirin wadan calankaas markaas haysta macnaha markaan ku leeyahay ciidamada cirka ee Mareykanka iyo ciidamada badda ee Chile waa labo institution oo dawladahaas ka mid ah laakiin calanka wadankaasi waa ka duwan yahay therefore maadaama Talyaanigu uu awoodaas lahaa asaguna uu watay calanka waa u hirgashay wuxuu wadankii gumaysanay wadanka dul joogay isaga loobi ku sameeyay taariikhda mid kale waxa loo baahan yahay qofka bini'aadamka inuu isticmaalo taariikhdu waa guide iyada wax xigta waxaan rabaa marka inaan u gudbo xiddigta iyo waxay tahay xiddigta waxa la yiri dadka Soomaaliya waxay yiraahdaan shanta Soomaali u taagan xiddigta rasmiga ah waxa la yiraahdo marka horta waxaan rabaa inaan sheego waxa shanta gees leh maanta anaga xiddig u naqaan buluugan waxa uu muujinayo xiddig ma waxa shanta gees leh anagu qano in xiddig tahay xiddig ma xiddigta Allah subhanahu wa ta'ala samada uu ku sameeyay oo ku qurxiyay sawirkeeda rasmiga anaga ma naqaan calanka bal noo sharax waxaan rabaa marka in aan sharxo xiddigta asalkeedii meesha xiddigta shanta gees leh waxa shanta gees leh xiddig naqaan waxa ay jirtay ilaa waqtigii Nabi Muuse alayhi salaam waxa isticmaashay saxaradii la dagaalantay ama ka hortimid Nabi Muuse micna ay leedahay oo caalamkan lagu taagan tahay marka hore aan ku hormariyo waa calaamad ay leedahay afar diimood diinta Wicca's oo sixira neo-paganism oo dadka cawaanta dadka la yiraahdo Kabbalah oo ah dad musixiriin oo sixirka ay ku dagaalamaana iyo dadka ah Satanismka ama shaydaanka caabuda ay u taagan tahay waxay leedahay maray hoos u jeedo iyo maray kor u jeedo labadaba micnaha ay u taagan tahay marka wuxuu yahay oo iyagu si u yaqaanaan ama ay u taagan tahay caalamka waxa weeyaan 5 elements of life shanta shay ee aasaaska waa ama base-ka waa wax alla waxa caalamka jira shantaasi waxay kala yihiin spirit ruuxda biyaha iyo hawada carrada iyo dabka shantaasi u taagan tahay xiddigtu qofkii markii ila shanta Soomaali u taagan tahay oo qof aan aayadayn waxaad ogtahay ma laha laakiin anaga waxa uu qaadanay shanta Soomaali macnaha qofkii alifay wuxuu sheegay in shanta gobol oo Soomaali uu ka soo qaado tan aad sheegay xataa hadii shaydaan la caabuday iyo carra iyo bad iyo xitaa ha ahaato laakiin hadii Soomaalinimada aan u qaadano maxaa dhibaato ku jira waxa dhibaato ku jira saddex dhibaato ku jirta waa mid koowaad adiga ma samaysan markaad ogaato inaad adiga samaysan caalankana shaydaan ah adiguna markaad heesayso aad u taagan tahay inaad kufri galaysid waxaana wax kale ay u taagan yihiin maanta aan ognahay waqtigii aan jahliga ku nooleen maahanoo dadku aysan waxba ogeyn maanta aan ognahay waxa ku diidan calan adigu aa leedahay oo ka turjumaya taariikhdaada diintaada iyo shakhsiyadaada maxaa ku diidan su'aashu waa waxbana su'aashu waxbana waxaan rabaa marka adoo Cabdulqaadir adoo iga raali waxaan rabaa inaan ku daro hal tidoo kale heestan annaga Soomaaliya aan leenahay waxa calanka laftirkiisa wuxuu leeyahay hees wadanka Mareykanka loo qaado dadka shaydaanka u qaadaan waxaan rabaa inaan isbarbar dhigo labada heeso tan Soomaaliya iyo tan ay u qaadanayo waxaan rabaa marka inaan tusiyo shacabka Soomaaliyeed xiriirka labada heesood ka dhaxeeya
iyo say iskugu mid yihiin inay meeshaa marka ka caddaato inay yihiin waxaani wax loo sameeyey design loogu talagalay in shaydaan lagu caabudo waxaan galaynaa heesta calanka loo qaado calanka waxaa la yidhahdaa Bonnie Blue Flag waxay leeyihiin we band of brothers waxaan rabaa inaan English ku sheego dan Soomaali inaan ku turjumayo we band of brothers native to the soil waxaan nahay koox walaalaha oo u dhalatay dhulka Soomaali heesta Soomaali maxaa ku jiray carrada kaliga adiga u curada ayagu waxay leeyihiin carradan u dhalatay meaning Mareenka marka la joogo la dhihi maayo carradan Soomaaliya heesteedana ma dhahayo ciidan lama dhahayo macnaha waa wax mudlaq oo furan talabaad waxay leeyihiin fighting for our liberty with the treasure blood and toil annagu waxaan u dagaalamaynaa oo ugu dagaalamayna xorriyadeena annagoo isticmaalayna dhiigeena hantideena iyo awoodeena waxay leeyihiin marka la cabsiyay when our rights was threatened our cry went far and near marka xuquuqdeeni la cabsiyay oo qalqali una galay ooyinteeni waxay tagtay meel dhow iyo meel dheer maxay ku ooyeen marka waa meesha aan rabo in dadku ay fiiriyaan ooyintoodu waxay ahayd hurrah hurrah for the Bonnie Blue Flag that bears the single star hurrah ereyga hurrah waxa uu la micnayaa exactly caawoy dhah macnaha waxa weeyaan sharaf iyo cizi waxay u sugnaatay calanka buluuga ee xidigta dhexda ku leh isaga ayaan weydiisanaynaa inuu caawiyo ereyga hurrah in English dictionary marka laga fiiriyo Webster marka laga fiiriyo ama American Oxford marka laga fiiriyo micnaheedu waxa weeyaan glory be to sharaf waxa iska leh waxa loo baahan yahay saas waa ereyga Soomaaliga marka la yiraahdo caawoy dhaha calanka macnaha markii loo heeso leeyahay adiga kaliga tahay adana caawiya adigan caawinaad ku weydiisanayna caafimaad aan noo keentay wixii naga maqnaa loo keentay intaas oo dhan markii la yiri ayaa waxa la yiri caawoy dhaha labada micno heesood waa isku midkii marka waayahay Sufyaan waa maasan tahay hal qarni ku dhow waxa tahay qofkii ugu horeeyay ee soo fadhiista ay yiraahdo calanka Soomaaliya iyo astaanta iyo heestaba waa qalad oo macnaha waa wax shaydaan lagu caabuday ama calaamad ka shana ku jira fikirkaas ma aqoonyahanada Soomaaliyeed kaliya ba iska leh maseedana shisheeye iyo wadamo kale ayaa gadaal idinka taagan I'm glad in su'aashaasi weydiisay wariye Cabdulqaadir because su'aashaasi waxa weeyaan wadankeeni maanta waxay cadeynaysaa taas beelaha u yahay faraglis beelaha u yahay wadankeeni cidii rabta iibsan karto wadankeeni wada iyadoo la isticmaalay Soomaaliyeed macnaha wax fiican hadaa keentid wax alla waxay rabaan noqdeen waxa lagu leeyahay waa iibsantay hadda maanta wadanka madaxdeena wadanka markay tilaabo qaadaan oo siyaasadda wadanka ay rabaan inay wanaajiyaan waxa leeyahay waxa ka dambeeya dawlad hebel fikirkaas fikir qalad waa laakiin soo ka maqraq ka ciisay in la yiraahdo heblo waxa wada qofkaas wada heblo qofkaas oo wata heblo waxa soo saaray iyo beesha caalamka inay u godinayso Soomaaliyeed hadii arrinkaas isku raaci waayo absolutely waa xaqiiqo jira laakiin waxaan rabaa inaan anaga teena ka jawaabo kooxda kale ku nool iyo Sufyaan Sheekh Axmed ka jawaabo waxa anaga aan wadno waxa weeyaan waa badbaado diinteena dalkeena iyo dadkeena loogadeenu waxay tahay ama halku dhigeenu wuxuu yahay difaac diintaada u danqo dalkaaga daryeel dadkaaga micnaheedu taas wuxuu yahay qof bini aadan oo Soomaali ahayn oo nagu raaci kara ama dantaas lahaan kara ma jiro qof Soomaali aan ahayn oo raba wadanka Soomaaliya inuu horumar gaaro wadanka diinta in la difaaco dadka in loo danqadahay ma jiro so therefore qaacidada aan ku soconno ayaa diidaysa inaan noqono dad la soo adeegsaday waxa kale oo taas ku daraya annaga markii aan aragnay dhibaatooyinka calankan uu leeyahay in uu yahay calan shaydaan in lagu caabudayo shaydaanka in wax badan qaldan yihiin waxaan go'aansanay inaan calan cusub samayno oo aan rabno in la qaato jamhuuriyadda Soomaaliya ay qaadato calanka isaga waxa ku yaala tawxiidkii qof bini aadana oo maanta nool oo dawlad kale oo dan kala leh ma nagu taageerayaan inaan calanka aan tawxiid ku qorno midda saddexaad oo raba inaan ku beeniyo inaan dad kale na wadanin annagu maxaan dad kale sii karnaa nimanka dawladda ku jira ama xildhibaanada dalka ku dumiyo dalka hadii nalo kuma dumi karo annagu in astaanta qaranka loo baabiyo soo dabacna kuma soo boodin astaanta qaranka maqnaadeen waa aqoonta aad ugu maqnaadeen oo islaha nimanka aqoonta waxbay bedeli doonaan marka imaadeen inaad aadaan astaan Soomaaliya ay calanka wax jira ma ah astaanta Soomaaliya calanka wax jira ma aha micnaheedu waxa weeyaan in la badbaadiyo shacabka hadii markii hore aan qaldanay inaan hadda is saxno waa waxa aan u taaganahay waana badbaado macnaha waxa keenaya in dadku saas u fakaraan oo yiraahdaan nimankan macnaha wadankii bay dhibaato u geysanayaan because waxa kaliya oo maanta Soomaaliya maanta ay u jeedo waxa weeyaan qof walbaaba inuu rabo qofka kale inuu farta ku taago oo aan la ogolayn hadii maanta fikir saliim oo fiican qof keeno waxa lagu leeyahay waa lagu soo iibsan waa wax Soomaali ka jira marka annaga shakhsiyan Sufyaan Sheekh Axmed iyo kooxda talo ku nool ma nihin ama ma noqon karno dad la wato waxaan wadanaa calan tawxiidku ku qoran yahay waxaan wadanaa inaan shaydaan inaan la caabudo meesha inaan ka saarno hadii la rabo wadanka in la burburiyo ama qolada rabta wadanka inay burburiso wadanka diin macna wadan islaam oo adag kama dhigteen
caalamka maanta jirahayna ma rabo diin ma rabo wadan diin oo adag ma rabo therefore anagu ma noqon karno dad la wato way marka hadda aad arrimaha diinta aad ka hadashaan oo aad calanka diidaan maxaad uga doontiin kooxahan diimaha dad ku laaya oo fikirka gaarka ah qaba waxa cajiiba hal mar laba su'aalood isku xigta marna inaad tiri gaala ku wata ama macquul ma tahay inuu gaal ku wato marna aad tiri inaad tiraahdo xaq jir maxaad uga duwan tahay taas waxay cadeynaysaa in aan nahay dad wadaniyiin oo runtii u taagan danta wadankooda anagu hub ma wadano mucaarad ma nihin dawladda hadda maanta jirta ama dawladda soo socota ama tii jirtay waa taageersana waxaan uga duwanahay marka koox hub wadata anagu ma ku socono violence kuma socono ama in la dagaalamo waxaan rabnaa dadka inaan ku bedelno aqli waxaan rabnaa dadka inaan ku bedelno cilmi markastana waxaan taageersanahay dawladda jirta xisbi siyaasadeedna qayb ka bayn ama mid diineed ha ahaato ama mid kale ha ahaado way 20 sano ugu dambeeyay dadka Soomaaliyeed waxa lagu beer la xabsanaya arrimadin ama macnaha laga keeno ama dal laga keeno ama ba gudaha dadka Soomaaliya qaarkood hal gaalaysiyo dadka Soomaaliyeed oo u dhagan ugu leeyihiin marka diin la yiraahdo marka idinku laftigeena arrimaha diinta ka soo gasheen oo calanka waa Kristaan iyo asaanti ba dhahdeen meel taas ay qayb ka noqonayaan idinku la isticmaalay wali dil rabada danash ee gadaal idinka taageen inaad dadka Soomaaliyeed ku beer la xabsataan adigoo diin uga dhigaya in calankooda iyo asaantooda qaranka ay yihiin wax Kristaan oo leeyahay wali Cabdul Qaadir dadka Soomaaliya waa dad Islaam boqolkiiba boqol oo sunniyiin qofku wuxuu yahay lagu beer la xabsado wuxuu yahay waay anigu waxaan nin Islaam marka la yiraahdo Ilaahay ka cabso waxaan ku qasbanahay inaan istaago oo Allah ka cabsado beer la xabsi ma waa xaqiiqda wadanka ka jirta laakiin waxa jira oo xaqiiqa in ay jiraan dad maanta wata diimo kaleeto oo raba inay naga dhaadhiciyaan diimo kaleeto oo aan diinta Islaamka anigu waxaan u taaganahay dadkaas in aan ayaga ka hortagno inaan diinta Islaamka si adkayno inaan dhaqamadii xumaa ee wadanka la qaatay ee Talyaaniga nagu qalday inaan meesha ka bixino waxaan u taaganahay in shacabka Soomaaliyeed uu noqdo shacab wadanka diintooda jecel wadankooda jecel dadkoodana jecel waayahay calanka aad wadataan bal inoo sharciisayno calanka annaga hadda aan wadano waa calan waxa ku qoran calaamadihii Islaamka oo ah bishii iyo tawxiidkii waxa ku qoran wixii u taagnaa shanta Soomaaliya meeshii shanta Soomaaliya la dhigi jiray xidig shanteeda gees ama waxaan shan geeska u taagneed waxaan siina mid walbaaba calaamad u taagan oo gooni ah oo tirsan oo shan ah waxaan sameynay calaamad midayn ah oo midaynaysa shantaas isku imaanayso rajadeenu waxay tahay shanta Soomaaliya inay isku timaado hal wadan noqoto rajadeenu waa sidaas waxaan u ololeynaynaa waa sidaas waxay kala wadataa taariikhdii iyo boqortooyooyinkii hore ee wadanka Soomaaliya oo runtii ay tahay maanta wax laga naxo in taariikhda Soomaaliya dadka Soomaaliya aysan aqoonin wixii 60kii ka horeeyay ama 50kii ka horeeyay way calankiina laftiina waa bulug shan xidig ayaad macnaha aad keenteen maxaad ku jabnaa hadii midka hadda jira oo Soomaaliya ay waliba ay ku mideysan tahay oo wax dhibaato isaga taagneen idinka ka hor asaxdaan intii dib aan cusub keen leeyahay waxa ka dhiman problemka ama dhibka maanta jira wuxuu yahay laba wax koow annaga ma aanan samayn karin waxaadan samaynin annaga Soomaaliyana waxaana dad sharaf leh waxaana dad Islaam ah waxaana dad taariikh soo jireen oo soo yaala leh in naloo sameeyo oo naloo yeeriyo calan mara gobol anagu aan samaysan karno in qof kale uu noo yeeriyo waxaad nooga hooseeyo waxaan qaadan karnaa ma taariikhda waxa ku cad in gumaysi Talyaaniga lagu sameeyay ninkii wadankeena boobay ninka maanta aan rabno waxyaabaha soo wadna waxa kamid ah inaan weydiisano Talyaaniga magdhow balaayiin dollar inuu bixiyo oo uu siiyo dalka Soomaaliya dhibaatadii uu noo geystay in la ka mago ayaan rabnaa inaan ka daba tagno marka calan uu asagu sameeyay ma bahaysan karnaba waxaan rabnaa calan Soomaaliya anagu marka mid kale waxaan rabaa wariye Cabdul Qaadir aan ku sheego maalinta ay timaado hadii alla yiraahdo in Soomaaliya ay ogolaato dadku qaato intooda badan waaba qaateen calanka Soomaaliya in la bedelo maalinta ay timaado calanka aan wadano ma aha qasab in la qaato waxa imaan doona in laga wada hadlo waxa imaan doona dadku inay ka doodaan dad badan oo cuqaala dad badan oo mutacallimiin ayaa wadanka ka buuxa oo fikirkeen oo kale uu ku jiro waxaan diyaar u nahay dadkaas inaan la fadhiisano dawladdu inay wado arintan ila dawladda dhamaynayso oo bedelaysa baarlamaanka dawladda markaas jirta ama tan ahaato ama mid kale ahaato in la sameeyo calan cusub oo Soomaaliya ay samaysatay oo Soomaali dhaqankeedii wata oo Soomaali diinteedii wata midkaas way midka aan doonayno waayahay muddo aad wax soo baranaysan oo dibadda aad ku maqneedeen sida aad sheegteen aad ka fikiraysan dadkii Soomaaliya waxaad u qabateen dhaliil marka laga tagay calanka qaldan ma ahan ummadda Soomaaliyeed waxun aad u soo kordhiseen oo kala mid jiraan
waxaan u soo kordhinay runtii aniga iyo kooxda aniga aan gudoomiyaha u ahay waxaan ka qayb galnaa waxyaabo la yiraahdo ololaha waxbaritaanka buugaagan qornaa waxaan taageernaa hay'adaha waxbarashada ee Soomaaliya ka jira waxaan taageernaa hay'adaha caafimaadka waxaan iska ilaalinaa oo banaanka ka istaagnaa wax lagu xisay siyaasadda because anagu sidaan aaminsanahay waxa Soomaaliya maanta ka jira haddaan dhex galno waxba kama qaban karno macnaha siyaasad ahaan marka la yiraahdo laakiin waxaan awood u leenahay inaan ama ceel qodno ama aan isbitaal wax ka dhisno ama aan iskuulo wax ka dhisno ayaan awood u leenahay iyadana waa qabanaa waxaan kaloo awood u leenahay hal iskuul aan dhisteen ama hal ceel aad qoday ma jiraan waxaan ka qayb qaadanay oo ma qayb qaadashan mar hal xab aad qodeen hal ceel xataa ma anagu ceel maanta aan isbitaal aad dhisteen anagu aan dhihi karno may waxaan nahay dad aad u yar 28 ilaa 30 ilaa iyo wixii ka macnaha kooxda gudeen committee-ga guud ma dhihi karno marka annaga waxaan nahay waxaasaan sameeyna ma dhihi karno in fact xataa haduu jiri lahaa kuma sheegi lahayn kuma dhihi lahayn ceelkaasan wadno because siyaasadeena ka soo horjeeda waa sadaqo mar rabna inaan ku abaal sheegno laakiin waxaan ku dhihi karnaa waa ka qayb qaadanay dhismaha ceelal dhisma isbitaal iyo waxbarashooyin muhiimkuna waxa uu yahay annagu waxaan go'aansanay canshuurtii wadanku uu nagu lahaa inaan iska qaadno ama aan ololo ku sameeyno aan wax uga bedelayno dadka waxaanan aaminsanahay wax ugu fiican ee maanta aan qabanay ama aan qabanayno in ay tahay in aan bedelno dhaqamada qaldan iyo taariikhdii la qalday ee Soomaaliya waa wax ugu fiican ee wadan u baahan yahay sida aaminsantahay waa saan aaminsanahay waana sida xaqiiqda waaya misleedahay aqoonyahanada Soomaaliyeed oo aad ka mid tahay 30 sano ka badan qurbaha ku maqnaa markii aqoonta soo diyaariyeen oo ay oo rabay xilligaas inay waxay soo barteen canshuurada dalka wax ku soo bartay dalka inay ku celiyaan meeshii laga rabay iyo horumar wanaag suubiyaan inaad la imaadaan qaran dumin iyo dhibaato ma ahna wax kale oo idinka faa'iido ma jirto wariye Cabdulqaadir waxaad leedahay qaran dumin runtii anagu qaran dumin ma nihin mana qaranka inaan dumino waxaana qaranka inaan dhiso calanka la baabiyo soo qaranka la dumiyo maya calanka la baabiyo qaranka la dumiyo calanku waa hal maro oo calaamad noo ah waa calaamada lagu yaqaan Soomaaliya waa calaamada lagu yaqaan Soomaaliya laakiin waxa aad u sahlan inaan calaamad kala qaadano nala kuna barto caalamka calan wixii ugu horeeyo iska hadaan iska bedelo wadanka ugu horeeyo calan iska bedelo ma noqonayno Zaire wadana xataa magaciyo bedelan wadamadu magacay rabaan hadday bedelan markay kala go'aan maaha wadankan hadda Congo oo kale la yiraahdo Zaire la dhijiri saddex mar calankiisa bedelay Ethiopia dariskeena laba maray bedeshay calankeeda dadku waxa jooga xadaarad wax la yiraahdo jira qofku marka uu ogaado waxaan asalkooda meesha uu ka yimid waxaad ku qasban tahay inaadan meeshii shala taagnaan aad bedesho hadii adiga مثلا maartay tusaalan ku siinaa wariye Cabdulqaadir markaan yarnahay dhalinyarada ama ragga markaan nahay naynaasaan noo bixiya naynaasas say noo socoto markaan odayaal noqono naynaas waa diidnaa sababtan u diidna waxa weeyaan because waqtigeedii waa laga soo gudbay qofku markuu dhalinyaro yahay ama markuu jaahil yahay ama markuusan waxaan aqoonin waxba la qurxoon maalintaad wax baratana wixii sidii ma calanka iyo heestiisa waxa la qaaday 6 sano ka hor iyo حتى كسي الشال قار او اسير waxa la alif ka tahay afartii meelaha كنت يا afartii alif waxa alifay talyaani waxa keena talyaani anaga Soomaali aamsanahay calaamadii Kristaanka ku jirta oo aan qofna diidi karin marka lagu daro wariye Cabdulqaadir lagu daro aan la diidi karin waxa taala taariikhdii man awood marka uma lihin macna aqlina ma aha wadana saas ku noqon mayno in aan wadano heeridii gumaysiga calaamadii gumaysiga inaan wadano anagoo rabna inaan la tartano caalamka waaya marka fiiriso dadka Soomaaliyeed oo idil meel walba joogaan ama shanta gobol oo xigta ay muujinaysa kala joogaan ama dibadda kala joogaan oo qurbaha marka imaado waxa kaliya ay ku meeysan yihiin calankaas inay macna calanka Soomaaliya uu yahay oo cidna aysan diidanayn marka halkii meel oo dadka Soomaaliyeed ay ku meeysan maanta inaad safaan oo aad imaadaan oo aad la dagaalantaan meesha nasiib darro waxaan nasiib darro in annagoo islaam ah boqolkiiba boqol in calaamad Kristaani ay ku jirto astaanteeda waxaan nasiib darro annagoo islaam ah boqolkiiba boqol intaan xabadka gacanta saarano inaan qaadno hees lagu caabudayo asnam annagoo aan samaysanay waxaan nasiib darro in aan haysano calan uu noo sameeyay nin gumaysta ah oo Talyaaniga oo yimid inuu ku dilo oo wadankaaga gumaysta u yimid waxaan nasiib darro in shacabka Soomaaliyeed aysan fahmin 60 sano waxay ahayd maalintii xornimada la qaatay 1960kii Soomaaliya calan cusub inay samaysato hees cusub inay samaysato waxaan darraa in shacabka Soomaaliyeed wadankii jacaylkii ugu horeeyo micna kaleeto oo qabiil inay jecel yihiin waxaana keenay heeriyada gumaysiga oo wali saaran waxaan wali u kala qaybsanahay sidii gumaysiga noo kala qaybiyay cudurka ugu badan hadda in la soo qabiilkaas maxaad ugu bilaabaysan waa gelinta inta caalamka urdi leedeen oo caalamka dhibaato aan xilligan lagu qabin ma dhibaato ka bilowdaan in qabiilka aad ka wacyigelisaan tahriibkan aad ka wacyigelisaan maxaa yeelay aqoon-yahano ayaa tiin wariye Cabdulqaadir marka anagu aan waxa siyaasaddu waa qaacido
sida xisaabta kaleeto qaacidaduna waxay leedahay formula in la dhigo oo la raaco waxa aan samaynayno waa sidaas sheegtay inaan qabiilka bedelno inaan bedelno inaan macnaha haddii la sameeyo calan ka turjuma ama astaan qaran oo ka turjunta diinteena dhaqankeena iyo wadankeena iyo taariikhdeena waxay bedelaysaa sida Soomaalidu ay fakarto waxay bedelaysaa qaabka aan u fakarno wuxuu noqon doonaa inaan diinta jeclaano kow inaan wadanka jeclaano labo qabiilku markaas inuu ku xigo maxaad ugu bilaabaysiin waaba iyadii baan ku jirnaa waabtan ku dhaca bedelida calanka wari Cabdulqaadir waxaan ku yiri inaan calanka bedelno oo aan macnaha calanku waa dhambalwada hadda Soomaaliya haddii hadda maanta lagu weydiiyo nin wariye ah tahay ama qof kale Soomaaliya dil weydiiyo leeyahay calanka Soomaaliya ee shangeeska cad dhexda kule ee buluuga ah muxuu Soomaali uga taagan yahay qof Soomaali shay kale male qofka ugu dhow wuxuu ku leeyahay waa cirka oo kale cirka kaligeen malihin waa badda oo kale badda kaligeen malihin qof Soomaalnimo ka mid ah Afrika ugu dheeraanayna may Afrika tan ugu dheer malihin Madagascar ka dheer Madagascar South Africa ma waa ka badeerta malihin so therefore banaan caran ku dhaganahay waa wax noo akhriyay macnaha calankiiba marka adiga ka turjumaayo seerabta marka inaad wadani ku noqotid haddaan ba calankaagii astaantaadii iyo diintaadu san ka turjumaynin ma noqon kartid wadani diinna ma haysatid laakiin xanuunka qofka meesha ka Soomaaliya baarba qofka daaweynaya bini'aadanka ah jir ahaan oo qof sida Ilaahay u abuuray meesha xanuunka uu ka Soomaaliya in la abaaro absolutely wari Cabdulqaadir aad u saxanta because annagu waxaan aanay Soomaaliya marka fiiris wuxuu ku leeyahay xanuunka Soomaaliya wuxuu yahay diintii oo laga fogaaday iyo ayagoon wadaniin ahayn daaris xanuunka ma bartaan marka inta hal bedel leedin waxaan ku bari lahayn ba wadan marka la rabo anagu siyaasiinana in kala qaadmiyo ku baraysan ma Cabdulqaadir anagu siyaasiinana 20 iyo dhowr sano soo barinay siyaasadda marka wadan la rabo in la bedelo ama bulshada la rabo in la bedelo waxa laga bilaabaa symboliska dadku uu leeyahay macnaha waxyaabaha dadku uu isku raacsan yahay oo faahirsan yahay calanku macno weyn uu leeyahay waa hanuuniyihii wadanka hadduusan calankaagii kugu hanuunin karin wadaninimo iyo diin hadduusan kugu hanuunin karin wax waa wixii ugu horeeyay ee la rabo wadanka in laga dhiso ka maqan wixii ugu horeeyay la rabo wadanka in lagu hanuuniyo ka maqan ma samay karna marka waa nolol kugu tala galayba Talyaanigu markuu calankan dulshiisa naga saariyay waxaana la kugu tala galay waligeen inaan isqabsan oo saan ahano inaan wadaniin noqon waana la kugu tala galay dawladihii kale waa iska bedeleen Libya waa iska bedeshay calanka Talyaanigu sameeyay Eritrea waa iska bedeshay Shanki China waa iska bedeleen kulligood waa la bedelay dadka kaliya ku haray waa annaga calanka marka aan bedelno